maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu casho sharaf u sameeyay isimadii ka yimid Puntland iyo Kilinka Shanaad. wariyahana Shaafici Shaacir ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Isimada maamulka Puntland iyo dawlad deegaanka Soomaalida ayaa baryahan ku sugnaa magaalada Muqdisho ee xarunta gobolka Banaadir. Isimadan ayaa u joogay hawlo shaqo oo la xiriira isu soo dhaweynta iyo nabadeynta ummadda Soomaaliyeed. dawladda hoose ee Xamar iyo maamulka gobolka Banaadir oo hormuud u yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa u sameeyay kulan sagootin ah isimada waxaana halkaasi ka jeediyay kelmad mahadcelin iyo tala soo jeedina Islaan Ciise Islaan Maxamed Islaan Muuse oo ku hadlayay afka isimada. waxaan kula dardaarmayaa isagoo qof waliba meesha uu ka leeyahay iyo abaarta uu leeyahay iyo miisaanka uu ku fadhiyo aynu u kacno dalkeena iyo dadkeena aynu ka baajino bahalka ama baadida bahalka ama bixida uu cidlada iyo badaha kale ku dhumayo waxaynu kaga gudbi karaa wada jir iyo tala midaysan Soomaalinimo oo la raadsho banqabi kara nabad oo dhalata banqabi kara waxaan leeyahay marka dadka maanta halkaan fadhiya caawa oo Soomaaliyeed qof walba waxa laga rabaa abaarta uu leeyahay iyo mudnaanta uu leeyahay. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay oo sheegay inuu mas'uuliyadda wixii ay dareemaan qaadayo gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. walaalayaal magaalada Muqdisho oo ah magaaladiinii caasimadii dalka Soomaaliya marar badanna waan sheegay haddana waxaan rabaa inaan hortiina ka sheego magaalada Muqdisho waa magaalada dadka Soomaaliyeed dadka ku hadla afka Soomaaliga magaaladoodii dadka afka Soomaaliga ku hadla haddii ay dareemaan inta aniga aan magaalada Muqdisho duqeedii ahay wax ay dhibsadaan ama in ay dareemaan inayan ula mid ahayn kan meeshaan ku dhashay ama hadda degan mas'uuliyaddeeda ana qaadanay bulshada ku nool magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir waxaa ka go'an Soomaalida Gaarisa Soomaalida Jigjiga Tanjabuuti iyo midda Hargeysaba inay iyo midda Muqdishoba si isku mid ah inay ula macaamilaan ula dhaqmaan taas ayada ah waa naga go'an tahay waajib ahaana waan u qaadanay waana ku sii dhaqmi doonaa haddii aan leedno. Shaafici Cabdinaasir Maxamed Shaafici Shaacir SBS Muqdisho.